بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. walaalayaal waxaan doonaynaa inaanu ka hadalno darsi ku tacalluqaya ama ku saabsan insaanka karaamadiisa iyo insaanka waxa uu ku noolaa karo iyo waxa uusan ku noolaa karin. horta ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu suuratul israa uu ku sheegay, bani aadamka gaal hadduu yahay hadduu muslim yahay ilaahay waa karaameeyey. karaamada insaanka ka dhaxaysa waxaa ka mida xayan wa meytan inuu maaragtay uu daahir yahay, oo kaafirku haddii uu dhinto meytadiisu daahir weeye. qofka mu'minkaana hadduu dhinto meytadiisu waa daahir oo muslimkaa. waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu ku fadilana waxay ka duwan yihiin makhluuqa kale waxa lagu fadilay. marka hadda waxaan soo qaadanaynaa annagoo ka hadlayna dersi kooban oo dadku maaragtay caqliga u siyaadinaya, tacaamulka basharkana ay ku ogaanayaan iyo basharka waxa uu yahay. caalimkii weynaay oo xilligii taabiciinta joogay, ninka caalimkaa weyn oo caabidka oo caalim rabbaaniya ah, cabdullaahi ibnulmubaarak waa taqaaniin, waa caalim mashhuura. maalin baa waxaa la weydiiyey maa khayra maa ucdiya alinsaanu ayaa la yidhi. insaanka waxa la siiya maxaa ugu khayr badanaa la yidhi. insaanka oo ilaahay abuuray gaar ahaan waxaa laga wadaa insaanka muslimka ayaa laga wadaa. hadduu yahay muslimkaasu muslim daa'ica amase kayru daa'ica oo maaragtay faasiqaba ha ahaado hadduu rabo. laakiin waxaa la su'aalay qofka insaanka adduunyadan ilaahay waxuu ku siiyo maxaa ugu khayr badan. waxa uu sheegay 4 derajo markuu leeyahay inuu wax khayra uu leeyahay. 4taas derajo ay kala sarrayso. haddii 4taas derajo laga waayane wax khayra inuusan lahayn, adduunyadana nolosheedu faa'iido u lahayn, ee inuu adduunyada uu ka taga ay u khayr badan tahay. marka ulajeeddada aanu ka leenahay waxaa weeye inaad ogaatid basharka bani aadamka ah, gaar ahaan dadka muslimiinta ah, sida maaragtay waxa sharafta ugu jirto oo derajada iyo maqaamaadka ay ku leeyihiin oo ay ku kala sarreeyaan inaad ogaatid. karaamada ilaahay agtiisa lagu yeesho oo qofku maaragtay ou noqdo qof kariima cindallaahi ou noqdo, taas ilaahay naska qur-aanka ayuu ku caddeeyey. wuxuu dhahay inna akramakum cindallaahi adqaakum ow ilaahi. dadka ha laysku soo duuduubeehe ilaahay agtiisa waxaa idinkugu karaamo badan oo idinkugu sharaf badan qofka idinkugu taqwada badan oo ilaahay ka cabso og. rasuulkeenna calayhi salaatu salaam anaa adqaakum lilaahi yow dhahay, ilaahay qofka idinkugu cabsi badanaan ahay. welidaa ayuu waxuu noqday markaasi adqal adqiyaa'i ayuu noqday, inta ilaahay ka baqda midka ugu taqisan ayuu noqday. sidaas ayuu waxuu ku noqday afdalu khalqi cala alidlaaq. marka hadda arrintan waxaa weeye la weydiiyey ibnulmubaarak, waxaa la yidhi maa khayra maa ucdiya alinsaanu, insaanka waxa la siiya maxaa ugu khayr badan. wuxuu yidhi markaasi kow khariisatu caqlin, caqli oo abuuris ah. dadku isku caqli ma ahan, caqli oo abuuris ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ayaa ugu khayr badan u dhahay. kow ayadaa bilow nolosha ka ah. caqligu marka waa 2 qaybooday culummada islaamku yidhaahdeen. midkan khariisiga ah oo hadda uu sheegaayo ibnulmubaarak uu sheegaayo, waxaa la jira markaasi mid oo kasabi ayaa la jira.
وحوي قفك عقلك wanaagsan leh oo ilaahay aqliga u dhaliyay oo qariisadiisa aqliga ay fiican tahay aqli waxa jira kaleentood oo aqligaas ka badan oo markaasi adduunka uu ka helayo waxa kamida tajaarubta oo maraayo waxyaabaha markaasi waxa weeye jaribaada waayaha aragnimada waxyaabahaas waxa uu ka qaadanayaa aqli ayuu ka qaadanayaa aqligaas marka waxa uu ku darsanayaa aqligii qariisiga ahay ayuu ku darsanayaa kolkaasuu wuxuu noqonayaa dadka basharka qofka ugu faa'iidada badan ayuu noqonayaa xataa waxay culimada islaamka yiraahdeen haddii xataa culimada xaggeeda loo kaco qofka dadka culimada ah nin walba ninka uu ka aqli badan yahay waa ka cilmi ku faa'iido badan yahay waa ka faham badan yahay waa ka faa'iido badan yahay waa ka aqoon badan yahay inuusan aqligu inuu yahay saldhigga uu yahay nolosha basharka waxa weeye waa aqliga qariisiga weeye hadduu rag yahay hadduu dumar yahay insaanka meesha uu ka bartiireeyo oo nacfigiisa uu ka bilowdo waa qariisatu aqli inuu helo waxa dee adduunyada lagu jaribo lagu yaqaanana weeye waxaa la yidhi markaasi fa in lam yakunaa la yidhi aqli qariisiya haddousan lahaynin saa la yeelayaa see u noolaanayaa waxa uu yidhi sheekhu fa adabun xasanun adab wanaagsan waa inuu leeyahay qof edban lisaankiisa laga nabadgelaayo yadiisa laga nabadgelaayo oon cidna aan wax yeelayn waa inuu yahay weeye maxaa yeele qofku hadduu caqli waayo waxaa dhici karta caqli la'aantaasu inay ku abuurto inuu dhibaato geysto weliba hadda culummada islaamku waxay mutafaq ku yihiin qofku haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala caqliga ka qaado oo nacfi laga waayo inuu adduunyada khayr uusan ku lahaynoo cadamkiisu inuu khayr badan yahay oo wujuudkiisa uu ka khayr badan yahay marka fa in lam yakun markii la yidhi waa u dhahay fa adabun xasabun edab wanaagsan haddaa waxaa weeye caqli saas aadan lahayn adab wanaagsan markii lagaa helo noloshaadu waa fiicnaahaysaa laakiin qofkii hadduu caqli beelo adabtiisa ay xumaato falaa khayra fiihi waaye ilaa middaan soo socota inuu haddana ku fakado mooye fa in lam yakunaa la yidhi haddii adab xasana laga waayana waa sidee waxau dhahay markaasi fa akhun shafiiqun yastashiiruhu waa inuu lahaadaa walaal oo u dhimrin badan oo shawrka weydiisto adiga caqlina ma lihid adabtaadu ma fiicna laakiin waxaad ku caymanaysaa walaal oo fiican ama ha kula dhasho ama kayr yowna kula dhalin walaal lama yidhaha kaliya midka kula dhashay ee qofkii maaragtay ukhuwada iyo suxbada kuugu run sheega walaalkaaga kaas weeye saxda midka kula dhashay hadduu cadow kugu yahay walaal maahan ee waa xagga nasabka kaliya laakiin walaalnimadii kaleentood baabkeedu kuma jiro markaasuu wuxuu dhahay sheekhu wuxuu yidhi fa akhun shafiiqun yastashiiruhu walaal oo dhimrin badan oo jecel oo shawrka weydiisanayo hadduu wax qaba tago war aniga wax ma ogiya waxaan igala tali buu leeyahy saas iyo sidaas sameeya uu leeyahy wixii uu ku dhaqaaqayaa qofkaa isagana waa noolaa karaa waxaa la yidhi markaas saddex waaye fa in lam yakunaa layidhi haddii la waayo taasne wuxuu yidhi fa samtun dawiilun waxaa weeye qof iska aamusan oon isku hadlaynin oon lisaankiisa wax ka soo baxaynin waa inuu ahaado u dhahay iska shiban yahay macnaha waxaa weeye lisaankaanu waxbuu dhibaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii maaragtay xadiiskii dheeraayo mucaad ibnu jabal waxyaabihii markaasi oo wanaagsanay markuu u tirinaaye kufa calayka haadaa ayuu dhahay lisaankaagan iska reebou dhahay carabkaaga iska ilaali carabku khatar waaye wixii lisaankaagaas ka soo baaxa ayaa lagu qorayaa shar iyo khayrba isagay ka yimaadiin marka wuxuu dhahay fa samtun dawiilun ou dhahay aamus oo dheer ou iska aamusan yahay waa inuu helaa hadduu aamusan yahay hadda waxaa weeye qof meeshaan jooga oon wax lurayn iska aamusan wax dhibaataa loo geysa maa laakiin hadduu lisaanka ka falan yahay ama kufri inuu ku sheegaa dhici karta ama uu dembi ku galaa dhici karta ama qof ina qadfo asagii loo dilo ama qof ou maaragtay wax yidhaha qofka uu wax yeelo dhibaataa ka imaanaysa shaqshaqatu lisaanku aad iyo aaday u xumanta ilaa maaragtay lisaankaaga ou la ilaali waayo afar sow maahan waxaa la yidhi markaasi fa in lam yakunaa la yidhi caqli qariisiya laguma haayo adab xasana laguma haayo walaal ou ka shawr dalbaya laguma haayo
samtun dawiilun laguma haayo intaasba qofku waa laga la'yahay bal hadda iska fiirsha caqli waaye cilmi oo xigmad oo caqliya waaye marka haddii intaas laga waayaa la yidhi fa mowtun caajilun ou dhahay mowt degdega allaha ku ridow dhaha kaas inuu iska dhintaa khayr badan marka waxaa fiiraysaa marka bani aadanka markaad fiirinaysiin waxaad ka fiirisiin darajaadkaas shantaas qaybood waxa uu ka yahay shantaas waxaa weeye afar ka mida waa ku noolaa karaa haba kala sarreeyaana saan hadda u soo sheegaynay midda ugu dambaysane waa midaan qofku wax faa'iido lahayn qofka haddii intaas laga waayo wax laga shinsaayo ma jirto adduunyada dhibaatou ku yahay marka waxaan rabnay inaan kelimadaas oo maaragtay xigmadii culimmadii islaamka oo waaweyneed ah shareecadana markii loo bandhigo waxaa loo keeni karaa waxaasoo dhan axaadiistaa la cusji karaa qur-aankaa la cusji karaa laakiin darsi dawiila inaan idiin sheegno ma rabno waxaa weeye ibnu mubaarak zaminkiisi wuxuu ahay ninka ugu cilmiga badan adduunkan ninka ugu caqliga badan ayuu ahay ninka maaragtay ugu maalka badanuu ahay ninka ugu geesisan ayuu ahay kulli waxaasoo dhan taariikhda islaamka culummadu waa taqaanaa marka waxay dadkaasu dhahaan wax sakuuraa waaye markay dhahayaane waxay milicsanayaan alkitaabu wasunna ay milicsanayaan kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay milicsanayaan marka in sha allahu tacaala darsi dambo ayaanu isugu soo laaban doonaa haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi